Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And ladies and gentlemen, I will be speaking Somali language for the benefit of our audience back home. But we're not going to leave you in the dark. If you look at this little leaflet you were given at the back, there is English translation for those of you who don't speak Somali. Marka u horeysa waxaan jecelahay inaan ku hadlo luuqadeena hooyo laba sababood awgeedba. Midda koobaad waxay tahay inaan xusno dadkii walaalaheena ahaa oo dalkeenii joogay oo aan afkeena garanaynin inayna fahmaan maadaama caawa la isugu yimid in ummadda Soomaaliyeed la karaameeyo waajib naga saaran weeye in afkeena hooyo aan kula hadlno na fahmaan. Midda xigta oo muhiimadda gaarka ah waxay tahay marka meelahan oo kale la isugu yimaado dadka intooda badan afqalaad bay ku hadlaan inaan luuqadeena hooyo cizeyno oo karaameeyno oo kor u qaadno waajibna saaran weeye haddaanan anagu is cizeynina cidna cizeynaysa ma jirto sidaa awgeed labadaas sababood weeyaan. waa subax sabtiya waxaana la joogaa magaalada Mogadishu 14 Oktoobar aan iraahdo ee magaalada Mogadishu la joogaa waa subax sabtiya dadka Mogadishu ku nool oo 3 milyan lagu qiyaasaana waxay ku tooseen bardan wa salaaman shalay iyo daraadna waxba ugama duwana mana oga waxa sugaya laakiin danahooda ayay u dareereen 30 sano ayaa xabad iyo dagaal ay ku jireen waxayna diideen inay ogolaadaan cabsi iyo dulli inay ku noolaadaan sida awgeed markii waagu u bariyay guryahoodii ayay ka tageen danahooda ayayna u dareereen. isgoyska sooba oo degmada Wadajir ku yaala magaca Wadajir muhiimad gaar oo caawa leeyahay maxaa yeelay ummadda Soomaaliyeed way isku timid maqshib iyo maqrib dalka gudihiisa iyo dabadiisa dhibaatadii dalkeena iyo dadkeena soo gaartay maalintaas 500 oo qof in ka badan ayaa ruuxdoodii halka ku weyday qaarkood waxa la garan waayay midabkoodu waxa uu ahaa iyo qofka ay yihiin siday u gubteen ee arxan la'aanta loo xasuuqay. sida awgeed ayay shacabka Soomaaliyeed markastoo dhibaato dhacda ay isku yimaadaan. inta badan waxa la yiraahdaa Mogadishu dhibaato ayay ku nooshahay dadkeeda ayaan wanaag rabinin gobolada kala nabad weeye arrintaas waxay u duur xulaysaa cunsuriyad iyo xumaan iyo qabyaalad iyo waxaan loo baahnayn. shacabka Mogadishu waxay la mid yihiin shacabka kale dunida ku nool iyo dalkeena hooyo nabadda iyo wanaagga iyo sharaftana way gayaan just like any other city in Somalia and around the world. way isku yimaadeen waxayna go'aansadeen dadka walaalahooda dhibaatada soo gaartay inay gacan qabtaan. dhalinyaro iyo rag iyo culamaa u diin iyo hooyooyin cid walba waxay u dhaqaaqday in ay markaas gacan ka geysato dhibaatada dhacday mid kuwii dhaawacmay dhaya mid dhiig u shuba mid asagu wuxuu hanti lahaa uu gaarsiiyo malaayiin lacag ay dadka Soomaaliyeed soo shubeen. in fara badan oo dadka kamid ah ayaa waxay yiraahdaan Soomaali way kala tagtay Soomaali way isnacday Soomaali isma rabto. arrintaas waa arrin gaf ummadda Soomaaliyeed ku ah dad isjecel oo walaalo ah oo isku daqnada ayaan nahay haddaan idinku yiraahdo gacanta taagay intii ka daqnatay dhibaatada halka ka dhacday qof walba oo Soomaaliya gacantu taagaya. therefore waxana mideeya oo na walaaleeya ayaa ka badan waxa yar yar oo aan isku haysano qabyaaladda inaanu aasno dadka iyo dalka Soomaaliyeedna sharaftooda iyo karaamadooda ay mar labaad cagahooda dib ugu istaagto. cid noo maqan oo dabadda nooga imaanaysa oo noo dhisaysa ma jirto rajaha ka qabin Soomaaliya inay dabadda ka imaado ku dhisaan. Soomaaliya waxay marti u tahay aniga adiga oo ka nimid u dhalanay una dhimanayna haddii Ilaahay yiraahdo. dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Mogadishu ku nool way diideen inay ka qayb qaataan argagixisada iyo qaraxa iyo dhibaatada bal waxay sameeyeen isbitaalada ayay tageen ayadoo cid organize garaysay haba yaraatee aysan jirinin si ay dhiigooda u shubaan. waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo fankii suugaanta aad iskuma fiicnin laakiin macallin Saciid Saalax oo ahaa hogaamiyihii hore ee kooxdii iftiin barisamaadkii ayaa waxa uu yiri mar uu qiixayay maskaxdiisa nadiifkaana uu maalayay dadkana uu la hadlayay ayuu wuxuu yiri ninaan dhiig u soo shubin ama dhidid u soo qubin ama dhamac u soo marin gobonimo ma dheefsado. Soomaaliya waxay u baahan tahay dhiig iyo naf iyo maal in loo shubo si ay mar labaad cagaheeda ugu istaagto. mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed waa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda joogta ishana ku haysa 24 saac kana daalay waa wadan burburay waa wadan fashilmay waa wadan ceeboobay manihin
imtixaan yar baan haysan oo gacanteena ku samaysanay waana ka baxaynaa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeedna waa mid cad oo sida cadceedu ay u caddahay cidii aan ogeyn caawa inay ogaato weeyaan waxaan jecelahay markii dhibaatadu ay dhacday dad fara badan ayaa isku dayay dawladda inay caawiyaan waxaan jecelahay si qalbi ahaan inaan ugu mahadceliyo dawladda Turkiga oo na garab istaagtay markay cid walba na garab istaagi weyday oo ummadda Soomaaliyeed gacan ku siisay inay dhibaatada la qaybsato iyo sidoo kale dawladda Djibouti oo walaalahanahay iyo madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele oo ayagu laftigoodu qayb weyn ka qaatay inay ummadda Soomaaliyeed u gargaaraan gabagabadii iyo gunaanadkii markaad halkan soo gasheen waxa la idin xiray biinkan yar ay ku qoran tahay nabad waxaan ka codsanaynaa qof kasta oo Soomaali oo dunida daafaheeda jooga inuu biinkan xirto nabad ma ahan xisbi aan urur siyaasadeed ma ahan nabad macnaheedu waxa weeye inay dalkeena iyo dadkeenu ay nabad noqdaan oo dagaalka iyo qaraxa uu naga istaago oo aan gacmaha isqabsano oo cizigii iyo sharaftii maandeeq ay lahayd ay soo noqoto guuliyo gobonimo idin rajeynaya thank you